السلام عليكم. waxaan ballan qaaday next video inaan jawaab ka soo bixin doono fariintan ama message-kan. marka hore waan ku mahadcelinayaa. waxaan kaaga mahadcelinayaa maadaama Janice ay siisay inaan bulshadayda la hadlo. tan xigta maadaama fariintan in badan ay igu soo laalaabatay si guud aan ugu jawaabi doonaa. الله سبحانه وتعالى وحو آيات كيس القرآن الكريم كأكليها كلمات كيس حقها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يولك أن ليا وحويان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله وحو ليها waxaa agteeda ugu karaamo badan uguna khayr badan cidda aniga iga baqda iga cabsata. hadduuba allah sas uu leeyahay waxaad ogaataa wixii ka soo hara taqwada allah inaysan waxba ahayn. qof walba oo garaad lahan wuu dareemi karaa. haddaba idhigayso hal talaa ku siinaya. cilmiga baro gaar ahaan diintaada islaamka baro. sababtan kuu leeyahay waxa weeyaan waxaad ogaan doontaa xadkaaga, xadka adiga aad leedahay ayaad ogaanaysaa. ugu dambayn waxaan ku weydiinayaa hal su'aal. su'aashana waxay tahay nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم كدبت أهي وكان أي كنبت كلان مسلمين تكلي كعنتي سئي عرب كيسا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر كان وحويان يعني قفك وحكتك وحويان وقفك كتك وحو إله سبحانه وتعالى وكرر. سؤاش أكويدينا وحيتها هذا بقى ذي مسلم كاتهاي ما مسلم كون نبي سفيه بعتهاي نسا جوابتي ذا الله يا رب.